salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal halkani waa raja t v kuna soo dhawaada barnaamijka tusaha caafimaadka oo toddobaadkiiba maanta oo kale aad ka daawataan raja t v xaruntiisa magaalada muqdisho. barnaamijkan alaaba waxaa idin soo saartay islamarkaana idinla socodsiisa anigoo ah baaji cabdulaahi salaad. toddobaadkan barnaamijka tusaha caafimaadka waxaynu kusoo qaadan doonaa sidee loo daryeelaa iskiinka ama maqaarka sida inta badan soomaalida u taqaano. toddobaadkan barnaamijka waxaa nagala qayb qaadan doona titoor nageeye islamarkaana goobtiisa shaqo in ugu booqanay xaruntiisa isbitaalka jaamacadda jaziira. titoor kusoo dhawow barnaamijka tusaha caafimaadka raja t v. aadaan uga faraxsanahay baaje iyo tiimkeeda iyo sida guud raja t v inaad na soo booqataan adinkoo bulshada wax u ahay aadaan u dhawahay waan mahadsantihiin. titoor nageeye waa dhakhtar ku takhasusay cudurada ama xanuunada ku dhaca maqaarka. titoor nageeye wuxuu ka howlgalaa nageeye skin care and cosmetic center. haddaba waa kuma doctor nageeye? aada umahadsantaha mar labaad. magacayga waa doctor cabdixakiim salaad nageeye, dhakhtar bartay cudurada ku dhaca maqaarka, timaha, cidiyaha iyo cudurada lagu kala qaada galmada. waxaan ka howlgalaa isbitaalka jaamacadda jaziira maalin walba marka laga reebo maalinta jimcaha subaxii 8 ilaa galabta 4:15. si part time habeenkii waxaan uga shaqeeyaa xarun nageeye skin care la yiraahdo oo ku taala Bulxubey, si aan dadka u wacyigelino wixii tala iyo caafimaadna aan u siino. titoor toddobaadkan barnaamijka tusaha caafimaadka waxaynu kusoo qaadanaynaa sidee loo daryeelaa iskinka ama soomaalidu inta badan sida u taqaano maqaarka, adoo faahfaahin guud nooga sheegaya. aada umahadsantihiin. marka laga hadlayo iskinka marka koowaad waa inaan dadka u sharaxnaa muxuu yahay iskinka, muxuu qabtaa, faa'iidadu noo haayo, kadib waxaan ogaan karnaa haddii aan daryeeli weyno maxaa ka imaanaya. marka haddii aan ku bilaabo ator iskinka muxuu yahay, qof walba uu ka dharagsan yahay waa xubinka ugu weyn xubnaha bini'aadanka oo idil. marka xubinna la dhaho xubinka ugu weyn oo jirkeena dhan dahaaro waxaa lagu qiyaasaa kg ahaan 4 kg qofka adaltiga ama qofka weynka kg-giisa ama culeyskiisa 4 kiilo ku dhawaad waxaa ah maqaarka bis. dherer ahaan marka lagu qiyaasayo waxaa la dhahaa wax gaarayo 2 mitir oo square ayaa lagu arkaa jirka oo dhan ayuu dahaaraa. maqaarka ilaahay wuxuu noogu sameeyey in uu noo dahaaro jirka oo dhan, xubnaha dhan oo u yahay protection ayuu faa'iido noogu yahay. maqaarka markaan kor uga jeedno anaga wuxuu noo yahay hal maqaar ama hal layer, laakiin wuxuu ka samaysan yahay 3 layer oo la kala yiraahdo epidermis, dermis iyo subcutaneous. mid kastoo kamid ah shaqo noo qabtaa, faa'iido ayuu noo haysaa. ilaahay subxaana wa tacaala xikmad ayuu ka lahaa abuuritaankiisana. markaan ka hadalno marka ugu horeyso qaybta ugu horeysa qof walba anaga naga mid ay arkayso waxaa loo yaqaanaa epidermis. waxa uu ka samaysan yahay 5 dahaar oo magacyo afqalaad ku qoran. 5 dahaar waxaa la stratum, corneum, spinosum, granulosom iyo basal cell layer. marka muhiimaddu ay noo tahay xubin kastoo kamid ah dahaarkaasi shaqo ayaa ku tuugan. haddaan tusaale usoo qaato epidermiska layerka ugu sii sareeya ee loo yaqaan stratum corneum wuxuu noo qabtaa protection. jirkeena haddii maanta ay meel xagmeyso, haddii shay oo soo weerarayo, haddii infection galayo meesha uga galayo ko barrier marka waxaa la physical barrier ayuu noo qabtaa. waxaa kaloo kamid ah layerada wax noo qabto layer loo yiraahdo spinosum oo asna ah waxa loo yaqaan afka qaalaad first line defense ama immunologically inuu noo qabto. waxaa laga helaa maada la yiraahdo Langerhans cells. marka waxay noo qabataa in bacteria ama immunological wixii ka dhacay jirkeena dhan inay difaac noo tahay. waxaa kaloo kamid ah basal cell layer oo ah xubinka u muhiimsan oo ka dhacay cell divisionka ama wax soo saaritaanka dhan ay leedahay. waxay noo qabtaa maado muhiim ah oo noo soo saara oo loo yiraahdo melanin ama melanocyte cells laga helaa. cellkaas iyo waxa uu soo daayo loo yiraahdo melanin waxa ay noo qabtaan iftiinka jirkeena soo ku dhacaya ee qoraxda ah wax naga difaacaya. haddii si kale loo dhahdana wuxuu noo qabtaa shaqo ah pigmentation, colorka jirkeena waxa siinayo ayuu kamid yahay. marka intaasoo shaqo ah oo soo aruurtay ayaa layer walba oo kamid ah layerska epidermiska laga helaa. haddaan u imaano layerka ku xigo oo loo yaqaano dermis waxaa loo yaqaanaa vascular, supporting and nutritional.
dependent epidermiska wuxuu dependent ku yahay dermiska oo haddii xididka dhiiga keeni lahaa nutritionalki meeshuu ka helayo. waxaa ku xigo layer kaloo loo yaqaano subcutaneous ama fat af soomaali ahaan, waa xubinka noo qabanayo jug haddii jirkeena gaarto jugtaas inaysan soo muuqanin oo la absorb gareeyo. haddii ay tahay energy reservoir in qofka markuu muddo baahi oo la kulmo ama oo lugeeyo waxa uu energy ka helayo. sida guud quruxda qeyb ay ka qeyb qaadataa. marka haddaa isku soo duubo guud ahaaneed waxaa la yidhaahdaa skinka shaqada uu qabanayo waa shaqo protection ah oo 3 shay oo muhiim ah oo aan soo sheegay oo ah infection oo immunological ah, qoraxdii oo light ah inuu naga qabanayo iyo mechanical barrier inuu noo qabanayo. waxyaabaha kale oo noo qabanayo waxaa kamid ah inuu soo saaro dhididka ama saliidda wejiga. khaasatan markaan ka hadlayno wejigeena kale waxaa laga ilaa yaqaan sebaceous glands. ilaahay wuxuu noo soo deeyay inoogu abuuray inuu noo soo daayo sebum oo ah jirkeena in uusan qaleel dareeminin markaan dhaqeeno in naga caawiso. laakiin waxaa dhici karto hadhowtaan ka hadlayna waxyaabaha ka imaan doona haddii ay ku badato saliiddaas maxaa ka dhalan kara. waxaa kaloo kamid ah shaqooyinka noo qabanaya dhididka. qofkeena wuu socdaa, wuu ordaa, wuu dhididaa. dhididkaas qayb caafimaadka kamid ah waaye qofka inuu dhidido jirkiisa soo saaro. haddii uusan dhididin dadka qaar waxaa arki doontaa cudurrada qaar ku dhici doono oo maqaarkiisa inay barar siiba qaasatan indhaa eerideeda inay barar maadaama dhididka banaanka usoo bixin inay ka muuqato. qodobada kaloo jirkeena noo qabanaya waxaa kamid ah quruxda. maqaarkeena inuu quruxda qayb weyn ka qayb qaadanayo oo qofka haddausan maqaarka ka ciladaysan yahay quruxda qayb kamid ay ka maqan tahay. waxaa kamid ah sida waxyaabaha uu qabanayo kale oo kamid ah haayarka timaha maqaarka lagu tiriyaa qayb decorationka dhan ama quruxda dhan oo bini'aadanka qayb ay ka qayb qaadataa. sensationka haddii maanta aan kuleel aragno qabow aragno waxa aan arkayno ama taabanayo waxaa kamid ah skinka oo shaqada u horeysa noo soo gudbinayo. wuxuu noo soo dayaa maado la yiraahdo vitamin D oo hormoon ah oo ka qayb qaadanayso jirkeena in ay faa'iido badan u leh. marka faa'iidooyinkaas oo dhan ayaa u baahan in la maintain gareeyo ama la ilaaliyo maqaarka. marka alcumuuman waxaan kusoo koobayaa maqaarka shaqadiisa ugu muhiimsan waxa ay u tahay xubnaha xitaa jirka gudaha ku jiro haddaan asiga la dayeelin ama asiga aanan ihtimaam la siininin wax badan ayaa ka dhalan karaa. Titore waxaa sheegtay sida loo daryeelo skinka ama maqaarka faa'iidooyinka uu qabto. haddaba maxay tahay shaqooyinka ugu muhiimsan oo maqaarkeenu inuu sameeyo? sidaan cashirkeena ku bilaabno wuxuu ahaa maqaarka maadaama yaa xubinka noogu muhiimsan oo noogu weyn oo qofka la arkaayo meesha laga arkaayo oo yahay in la daryeelo ayuu u baahan yahay. daryeelitaanka uu nooga baahan yahay sida qofka annaga oo quraac qada casho ugu baahan wuxuu ugu baahan yahay daryeel sidaas lamid ah oo la dhahay routine in habeenkii muxuu isticmaali karaa maalinta muxuu isticmaali karaa. marka haddaan kusoo noqdo dadka adduunka joogo ama dadka dhan isku nuuc ma ahan. qof wuxuu leeyahay dufan waxaa la yirahdaa oil type, qof waxaa waaye qaleyl jirkiisa waxaa la yirahdaa dry skin, qofna waa combination oo isku jira labadii isku jira. markaan rabnay inaan daryeel u sameyno isku si uguma sameynayno, waxaan u fiirinaynaa qofka muxuu yahay nuuca oo yahay inaan ogaano. marka waxyaabaha la rabo daryeelka inuu ku sameeyo waxaa kamid ah kow saliidda jirka. shay kasta oo ilaahay na siiyey xigmada ka dambeysa laakiin khayrul umuur usado haddii saliiddu ay ka badata xadka loogu talagalay waxa ay keeni kartaa nabro wejiga inuu yeesho, in qawidka oo ku dhaco, cuduradaas oo dhan ay keeni kartaa. marka waxaa u baahan tahay saliid haddii aad tahay dadka nooca saliidda leh inaad saliidda jirka controlshid. ma ahan inaad ka wada dhameynaysid, ma ahan inaad wada qaljinaysid, xigmada ka dambeyso laakiin si in la controlo inay badanin. waxaa kamid ah qoraxdaan ku baxnaa annaga waa ku soconaa. Soomaaliya marka la sheego cimilada aad ay kula shahay qoraxda marka raysa ka yimaado maqaarka dhibaateynayo qofka inay daada kusoo degto, in midabkiisa ahaan oo ku bato oo midab madooba jirka lagu arko. marka pigmentationka kalarka jirka ayaa u baahan in la ilaaliyo oo la daryeelo. waxaa kaloo u baahannaha collagen maada la yiraahdo oo maqaarkeena uu ka samaysan yahay ayaa u baahan in la ilaaliyo la maintain gareeyo. ayada waxaan ka heli karnaa cuntooyinka aan cunayno. sidoo kale waxaa la rabaa in laga ilaaliyo waxyaabaha aan isticmaalayno inaysan wax collagenka dhibaato u keenaya aysan noqonin waxa noogu muhiimsan. waxaa kaloo noogu muhiimsan moisturizerka kareemyada aan marsanayno. qof walba wuxuu jecel yahay inuu kareem iska marsado. marka waxaa muhiim ah kareem noocee marsanaysaa, kareemka aad marsanaysa muxuu noqonaa, nuuc kugu habboon ma yahay, ma habeenaad marsanay ma maalinaad marsanay. qofka inuu aqoon u leeyahay inuu barto oo laga wacyigeliyo ayuu u baahan yahay.
titore ma jiraan dhibaatooyin ka dhalan kara qofka bini'aadanka jirkiisa ama iskiinka daryeel joogto ah haddii uunan u sameynin dhibaatooyin ama disease ama cuduro ka dhalan kara baashi aadaan ugu faraxsanahay su-aashaas inaad i weydiiso waxyaabaha ugu muhiimsan oo ka dhalanaya oona wada aragna waxay tahay example haddaan kaftan ku dhex geliyo dadka adduunyada joogo ayagoo naga da-weyn ayay haddana markii noola fiiriyo muuqaal aan naga qurxoon yihiin ama inay naga yaryihiin loo marayaa sababta keenaysa waxaa waaye waa qof fahansan maalinka oo yaraa dhalinyaro ah soo bilaabay daryeel joogto ah inuu maqaarkiisa soo siiyo maxaa ka yaraanaya cudurada hadda soo saliidda jirkiisa inay kontroolan tahay haddii saliidda jirkiisa kontroolaato finan badan ma ka imaanayo wejigiisa nabra ma yeelanayo waxaa kaloo lamid ah in la kontaroolo u baahan midabka jirkiisa qoraxda ku dhaceyso iyo midabka inuu kontaroolan yahay hadduusan kontaroolin waxaa imaanayso in midabyo badan oo kala duwan oo jirka yeesho waxaa kaloo kamid ah iskiinka inuu lalaabyo yeesho oo ka muuqato da-dii kasoo muuqato marka waxyaabahaas o dhan waxay ka dhalan karaan haddii aanan xaqi ou lahay la siinin oo daryeelka ou lahay oo naga mudnaay aanan maqaarka la siinin titore inta badan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka obesity-ga ama dumarka xilliyada uurka markay leeyihiin waxay aada iyo aada ugu cabtaan stretch mark ama dildilaac waxyaabahaas ma laga yaaba inay keeni karaan daryeel xumo aada umahadsan tahay mar kale su-aashaas ay weydiiso muhiim u yahay stretch markerska waa topic asiga dhan in laga hadlo u baahan bulshada dhan laga wacyigeliyo sidaa sheegta hooyada uurka leh dadka xayeysiga ahaa ee miisaanka helay ama qofkii cayilnaya ee miisaanka iska dhimay khaasatan dadka dhalinyarada ah hadda Soomaaliya oo isticmaala kareemyo qaar oo aanan fiicnayn ayaa waxay ku keenayaan inay yeeshaan nabrahan waxa ay ka dhalatay kow daryeel xumo hooyada markay uurka leedahay maxay u baahan tahay topic in loo diyaariyo laga hadlo kow marka si guud aan kaga hadlaa hooyada markay uurka leedahay miisaan jirkeeda ka badanaa soo koraya khaasatan caloosha inay kala baxday isku dayay jirkii marka qaleel marka muxuu u baahan yahay moisturizer joogta in la siiyo la daryeelo marka haddii aanan kareemkaas la marinin oo aan la joogtaynin waxaa imaanaysa inuu diiqo oo jirka kala baxo sababta nabraha uga dhalanayaan qodobka labaad qofka marka uu rabo asigoo caata ah ama xayeysi ah inuu miisaan sameysto oo cayilo wuxuu u baahan yahay markuu jimka aadayo inuu ku talagalo inuu kareemyada qaar oo marsanayo markuu exercise ka sameeyo iyo markuu exercise ka dhameeyo kadib muxuu marsanaa waayo haddii uusan sameynin jirkan uu kala baxa maqaarka uu kala baxa collagen uu ka samaysan yahay nabrihii sidaas ku imaanaya marka sida lamid ah haddii aad isticmaasho daawooyin aanan dhakhtar kuu qoraynin ama cosmetic aadan dhakhtar kala tashanin waxaa keeni karto inay nabrahaas ka imaadaan oo stretch markerska jirdubaaxyada loo yaqaano marka waxay ku dhalinaysaa daryeel la-aan marka hore ama isticmaalka wax la isticmaalayo oo aanan dhakhtar lagala tashan ayay ka imaanaysaa sidaas oo ku yimaada marka cudurkaas titore sidee loo daryeelaa oil faceka ama dry faceka haddaba Soomaalidu inta badan sida u taqaano wejiga saliidda leh iyo wejiga qalalan maanta waxaan ka hadlaynaa si guud topic guud oo ah sidee loo daryeelaa markaas topigaan rabnaa inaan ka hoos sameyno oo ah qolada saliidda leh qolada qalalan marka si guud haddaan usoo hadlo qofkan saliidda leh iyo qofka darayga ah wixii ay ku kala duwan yihiin si shayga loo isticmaala loo ogaado qofka saliidda leh waxaa la rabaa in la isticmaalo kow weji dhaq inuu isticmaali karaayo ku habboon waxaa magaalada yaalla weji dhaqyo badan oo oil control ah laakiin midka kugu habboon ama waxa ay ka kooban yihiin inaad kala tashatid dhakhtar maqaar ah qofka inuu dhaqo wejigiisa maalinta 2 jeer uma baahna inuu wax badan dhaqo hadduu dhaqo saliidda asaa isku sii badinayo hal mar xataa NF waaye waxaana ugu fiican qofka markuu gurigiisa imaado intuusan seexanin ka hor inuu dhaqo shay ku munaasab ah oo dhakhtar maqaar usoo qoray ama qof aqoon u leh ayuu u baahan yahay inuu ku dhaqo wuxuu u baahan yahay sidoo kale kareemka moisturizerka ah oo marsanayo ama shay walba oo rabo qurxintiisa u isticmaalayo inuu kala tashto dhakhtar waayo kareemada qaar waxay ka samaysan yihiin ayagaa saliid leh marka waxaa la rabaa wax free oil ah oo dadka loogu talagalay type of oil skinka ah inay isticmaalaan waxaa kaloo muhiim ah inuu qofka isticmaalo maalinkii markii la joogo oo soo baxayo shaqadiisa soo aadayo qoraxda kareem looga hortagayo kareemyada marka waxay ka samaysan yihiin mid oil ah oo oil free ah iyo mid loogu talagalay dadka qaleelka ah waa marka example-ka aan usoo qaatay inay ku kala duwan yihiin labadooda qofna waxaa la rabaa in loo sameeyo moisturizer oo saliid leh qaleela jirkiisa yahay in dufan loo sameeyo si uusan qaleelkaasi usii badan qofna waxaa la rabaa saliidda ku badan inuu iska yareeyo marka labada qofoodba waxay kala isticmaalayaan waxyaabo kala duwan oo different
chemical ka samaysan marka wuxuu u baahan yahay ma isticmaali karaa example haddaan usoo qaato aniga qof intuu ii yimaado gurigeyga maanta ii yimaado shay ani aan isticmaalayo inuu isticmaalo uma fiicno waayo aniga nooca aan ahay inaan ku saleeya laga yaaba asigana uusan ahayn oo sidaasi dhibaato kaga imaato marka qofka oilka wuxuu u baahan yahay wejigiisa maalinta 2 jeer inuu dhaqo at least haddii hal mar uu dhaqayo xataa habeenkii marka uu seexanayo inuu dhaqo shay walba oo marsanayo wejigiisana inuu u fiiriyo nooca aad tahay oo oilka ah ma loo isticmaali karaa noocan marka sidee ku ogaanaysaa waxaa ku ogaan karo dhakhtar inuu fiiriyo ama mashiino dhakhaatiirtu ee haysato maqaarka ayaa jirto intay saaran ayay ku ogaan karaan collagenkiisa intuu maraayo saliidiisa inta ay badan tahay pigmentationka uu gaaro waxyaabahaas oo dhan uu ku ogaan karaa doctor waa maxay dhibaatooyinka ka dhalan kara qofka dhakhtar la-aantiisa daawooyinka herbalka ama waxyaabaha cosmeticska inta badan dumarka isku qurxiyaan la talin dhanka dhakhaatiirta haddii aan lahayd daawooyinka lagu gado qaybaha herbalka inta badan Soomaalidu ama dumarka haba u badnaadeen waxay ka cabtaan wajiyada gudguduudka iyo haara iyo waxyaabahaas ma laga yaabaa inuu keeno face oilka baajo waa maasan tahay waxay weydiisay su'aal in la tafaasiili u baahan oo dhowr su'aal ka kooban hadda saliid oil inaan leedahay haaro ama gaduud kama dhalanayso haddii wax aad isticmaalayso aysan qaldaneen ama cudur uusan kugu dhicinin laakiin kan cosmetica qof walba oo naga mid ah ayaa u baahan inuu isticmaalo ama gabar ha noqdo ama wiil ha noqdo qof weyn oo da ha noqdo ama cunug yar laakiin waxay u kala baahan yihiin nooca aan isticmaalayno iyo waxa uu ka kooban yahay iyo annaga wax aanan inaan iswaafajino taasna waxaan filaa waxaa khibrad u leh oo ku takhasusay dhakhtar maqaar ama qof cosmetic bartay oo dhakhtar maqaar ah kabacdi takhasus ku sii sameeyay marka waxaan jecelahay daawooyin badan ama wax badan oo la isticmaalayo waxaa laga yaabaa inay kuu fiican yihiin ama inay kuu xun yihiin laakiin yaa kala ogaan karo fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun marka uma baahnid inaad cid walba weydiisid inaad gabar saaxiibtaa weydiisid fadlan haddaad rabtid cosmetic maanta dhakhaatiir badan oo dhalinyaro ah oo takhasus leh oo fara badan waddanka joogto midkiis la kulan kii kuugu dhow kaas ayaa kaa siin kara xog ku saabsan kan aad haysato inaad u geysid doctora kan ma isticmaali karaa asiga aqoon durugsana uu leeyahay nooca aad tahay teebka aad too ogaan karaa marka wuxuu ku siin karaa cilmi badan oo ku saabsan waxa aad isticmaalaysid waxaa kaloo u baahan su-aashaas xilliyada aad isticmaalaysid shay walba iskama isticmaali karto waqtigaa rabtid waxaa jira markaa skin care leenahay routine skin care imaanayo routine skin care waxaa isticmaali ma ahan gabadhu ama wiilku maanta ayuu xaflad aadaa waxa uu marsanaa ma dhehena cosmetic waxaan rabnaa wax oo habeen iyo maalin oo isticmaalayo oo sida dharka uu xiranayo ama cuntada uu cunayo ugu fikiro oo inta suuqa tagto usoo adeeganayo markaa sidaas samaysid daawo kareemada qaarna waxaan isticmaali doonaa habeen kuwa qaarna maalin isticmaali doonaa haddii marka la isdhaafsiiyo ama la isla isticmaalo dhibaata ka imaanayso dhibaatooyin fara badanaa ka imaan karo inuu wejiga gaduud yeesho inuu haara yeesho inay nabruhu kugu bataan waxyaaba badanaa ka imaan karo marka waxay u baahan tahay wacyigelin fara badan waxaan dhakhaatiirta ku baraarujinaa maqaarka saaxiibaday ah ay bilaabeenba in bukaanka marka u yimaado in laga sii wacyigelin qofka ma xumo ma qaldano inuu cosmetic isticmaalo qof walbaa u baahan waa ku dhiirigelinayna laakiin laba su-aal isweydii noocee isticmaalaysaa adiga maqaarkaaga iyo noocaan isticmaalaysa mise leeyihiin shayga uu ka samaysan yahay kiimikaalkaane shay ku anfaca miya titore marar badan waxaa ka dhamaajisay qofka biniaadanka in loogu baahan yahay si joogto ah inuu u daryeelo skinka ama maqaarka haddaba waa maxay waxyaabaha qofka loogu baahan yahay inuu iska ilaaliyo su-aashaas igu muhiimsan waxay tahay waxyaabaha aad iska ilaalinaysa waxay tahay haddii aad og tahay nooca aad tahay haddii uu yahay nooca saliidda ah waxaa rabtaa inaad iska ilaaliso saliiddaas inaysan kugu badan dadka nabraha leh finan kale waxaa u badan waxyaabaha u keeno qodobo badan waaye qodobka ugu muhiimsan waxaa waaye saliidda oo badan ayaa keeni karayso kan qaleelka ah jirkiisa haddii uusan isticmaalin kareemyada loogu talagalay asigana waxaa dhacayso in wejiga xasaasiyad ka qaado oo qolfo kasoo kacaan wax walbo marsada uu adkeysan waayo dhibaatadaasa ka imaanayso marka waa sababta aan u leenahay quruxdu waxay ka bilaabataa heerka aad u daryeeshid maqaarkaaga عشان قفك إنه استعماله شيء فلتر كمان dhalinyaradu ku wanaagsan yihiin kaamirooyinka qurxoon aad u jecel yahay waa guud laakiin waxa ka sii wanaagsan inaad isticmaashid skin care kaaga quruxda inaad u isticmaashid maqaarkaaga adoo daryeelay ayaa ugu muhiimsan
titore waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal muhiim ah. Inta badan bulshada Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa qofkan asoo inta badan mashquul ah, hoolooyin badan ee hortaalo, dhibaatooyin ma jira uga imaan karo qofka asoo aad u dhididsan inuu qubeysto. Dhididka faraha badan haddaba ma keenaa cudurka qawidka? su-aal muhiim waaye. qofka markoowaad waxaa lagu bilaabay shaqooyin adag asoo qabanayo maxaa ka imaan kara. waxa ugu muhiimsan hadda ii sheegto waxaa dadka mechanical-ka qabto ama inta sports ciyaaro dhidido ma ka imaan kara qawidka. qawidka waxaa keenay infection, fungal infection ah, nooc kamid ah oo loo yaqaano Malaysia furfura. asiga marka waa la isku daartaa. waxyaabaha marka dadka inay ku yimaado ku sababi karo waxaa kamid ah saliidda jirkiisa inay badan tahay. xilliga dhalinyarada leeyahay oo aad ayaa saliidin u badan tahay, marka waxay keenaysaa bacteria fungalkaas oo keeno maxaa lagu dhahaa qawidka. aad waxay u jeceshahay saliiddaas, marka saliiddu meesha ugu badanta jirkaaga inuu soo aado. waa la kala qaadi karaa, asxaabtaada u gudbin kartaa haddaa wax wada isticmaashaan, dhar isticmaashaan, gogol wada isticmaashaan ayaa lagu kala qaadi karaa. marka waxaa habboon qofka markuu soo dhidido inuu ka qabeysto oo saabuun oo anfaceysa ku qabeysto, dhar aanan laisla isticmaalin. hadduu qawidka isku arkana sida ugu dhaqsiyaha badanna inuu ku booqdo koobta kuugu dhow oo ka howlgalo dhakhtar maqaar ah, inaad ku aamindid jirkaaga. waayo waxay muhiim u tahay sababta un leeyahay dhakhtar maqaar la kulan, meesha jirkaaga laga arkayo dhan waa maqaar. haddii marka maqaarkaaga aad ku aaminto qof aan dhakhtar maqaar ahayn, waxaa ka imaanaysa cilada ka imaato way ku saameynaysaa, nafsiyanay ku saameynaysaa, bulsho ahaanay ku saameynaysaa. marka haddaad isku aragto qawidka waqtiga kuugu dhow cudur la daaweyn karo waaye, waqti dhow la daaweyn karo waaye, si aadan reerkaaga ehelkaaga ugu faafinin iska daaweyn. titore waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal muhiim ah. inta badan Soomaaliduna ay isweydiiyaan, qofka haddii oo marar badan waxaa laga yaabaa qofkan shaqo inuu ka imaaday, guriga markuu imaado waxay Soomaalidu inta badan caado u leeyihiin waa dhididaysaa, ha qubeysan saacad ama 2 saac camal joog, kadib markaa nafisto qubeyso. maxay tahay ujeedka ka dambeeya? wallaahi annaga Soomaali markaan nahnay oraahyada aan dhahno ama dhiirigelinta aan isku sameyno kuma saleysno cilmi, research laga sameeyey, dood laga sameeyey kuma saleysno. ma jirto sabab looga diidayo. qofkaani wuu soo dhidido, wuu yimiday, dhididka markuu yimaado wuu qabeysan karaa. laakiin ayagaa waxay aaminsan yihiin jirkaagaa furan, biyaa galaya, biyo ma gelayaan, oo wax oo gooniya oo sabab keeni karta maahan. at least waad imaatay, wax yar naso. qofka markuu imaadoba shaqo adag soo qabto waxaa fiican inuu nasiino sameeyo, galaas biyaa cabo, markuu nasto kabacdi qabeyska iyo shaqada aado. laakiin adoo shaqo ka imaaday xaalad kale marxalad kale lamaba furabo, qofka uma fiicno. marka wax oo diidayana ma jiro haddii qofka markaas baahidiisa ay ka qabato inuu qabeysan karaayo. qofka markuu soo dhidido dhididkaas jirkiisa intuusan ugu tago bulsho ahaan uma fiicno, asigana caafimaadkiisa uma fiicno. waxaa fiican asigoo isticmaalayo waxyaabaha lagu qubeysto inuu kaga qabeysto. titore marar badan waxaa ka dhawaajisay daryeelka joogtada ah loo sameeyo maqaarka. ma waxaa ula jeedaa daryeel in loo sameeyo skinka qofka inuu marar badan uu qubeysto? ma laga yaabaa qubeyska faraha badan oo qofka uu sameynayo daily routine in cudurada qofkaas ku dhici lahaan maqaarkiisa inuu cuduro badan uu ka badbaadi karo? su-aal muhiim waaye. waxaa u baahannaha su-aashan inaan cilmiyada ka dhigi lahay. maanta oo kale qabeyska tore meeqaan u baahannaha? Soomaaliya marka la joogo meel cimiladeeda kulushaa waaye, qofkii 2 mar waan dhigi karnaa. laakiin maanta dhan inaan qabeysano maqaarkaaga uma fiicno. hal mar maalintii qofku waa inafo ku yahay inuu qabeysto, khaasatan caruurta markay yaryar yihiin. in hooyooyinka waxaan kula talinaha in qabeyska laga yareeyo. qofka haddii loo qabeeyo weliba saabuuno loogu qabeeyo jirkiis waa la qalajiyey. annaga dhaqan waxaan u leenahay ma isticmaalna kareemiska hadda aan sheegaya iyo daryeelka ma heleyno. marka qabeyska badan wuxuu keeni karaaba qaleel jirka inuu ku rido. marka cudur gooni ah oo qabeys badan kaa badbaadinaya ma jiro haddii aasan infection ama wax uu keenayo oo in la nadiifo u baahan mooyaane. qabeyska maalinta waxaa enaf nagu ah 1 mar. haddii markaas qofka shaqo adag uu hayo ama uu soo dhididay 2 mar maalinta. laakiin in qabeyska la badsado wax faa'iida jirka uma laha inuu u dareeyaa mooyaane. ugu dambeyn titore waxaynu isla soo gaarnay guntii oo gabagabada barnaamijka Tusaha Caafimaadka Raja TV. bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku xiran Raja TV ama halkan kala socda barnaamijka Tusaha Caafimaadka maxaad kula talin lahayd? marka hore fursaddan ay siisay Raja ayaan kaga mahad celinaa, iyo tiimka ila joogo baashi tiimkeeda waxaan kaga mahad celinaa inaad ii siisaan fursad inaan bulshada kula hadlo
oo aan ka wacyigeliyo markaad aqoon u barato cilmi kamid a cilmiyada waxaan aqoonta aan leenahay marka horeba qaliilan ah laakiin waxaa waajib kugu ah inaad bulshada gaarsiiso aqoonta aad u leedahay inaad ka wacyigelisid u leedahay bulshada marka waxaan ka wacyigelinaa kow maadaama aan sharaxaad yar oo kooban ka bixinay maqaarka muxuu yahay faa'iidada uu noo leeyahay iyo howsha uu qabto haddii aanan daryeel loo sameyninin shaqadii uu qabanayay ayaa yaraanayso waxaa ka imaanaya meeshaasi inay cuduro ka imaadaan bilmasel haddaan cunto isku dheeli tirin cuni weyno maqaarkeena wuu daciifayaa dhaawac yaraa gaari karo kabacdina infekshanada uma dul qaadan karno haddii aan sameyn weyno keer oo moisturizerka kareemyada umari weyno qaleelaa imaanayo cuncunaan dareemeyna waa xogxogeyna cijiyeena dhawaac u geysanayna infectiona sidaas noogu imaanayo marka waxaan u baahannahay inaan daryeel joogto ah aan u bixino maqaarkeena haddii aad ku aragto dhibaato kamid ah maqaarka kula soo diristo ama cuncun ama nabro kaa soo baxaan ama dhaawac ku aragtay fadlan booqo goobta aad ku og tahay inuu fadhiisto dhakhtar bartay cudurada maqaarka oo takhasuskiisa yahay inaad ula tagto asigaa kaa siin karo wacyigelin wixii isticmaaleed iyo daawo haddii aadan tegin marka waxaa laga yaabaa inay kaala kulmaan dhibaato kale oo ah maqaarkaaga inuu kasii daro ama aad problem kale ka qaato hadhowtiin dhakhtarka xataa takhasuska lahay oo inuu ku daaweeyo ay ku adkaato marka waxaan ku wacyigelinaa inay saaxiibka la dhigtaan dhaqaatiirta maqaarka maadaama waddankeena hadda dhaqaatiir fara badan soo galeen oo maqaarka ah inay ka faa'iidaystaan ayaan kula talinahay sidoo kale doctor maxaad kula talin lahayd dhalinyarada inta badan haddii ay ahaan lahaayeen wiilasha iyo gabdhaha inta badan waxaa dhacdo qofka asoo wejigiisa finan leh ama agni isbitaal ma la xiriiraayo inta badan soomaalida sida ay sameeyaan farmashiga ugu dhow ay waxay kasoo qaadanayaan boomaatada uroon agniga dhibaatooyin badanna ay kala kulmi karaan dadkas maxaa leedahay aada u mahadsan tahay su-aal fiican ay xasuusisay waxaan rajeynayaa inaan topic fiican in kaga soo sameyno waqtiyada noogu soo dhow cudurada ugu badan ee maanta dhalinyarada kaaga cabato ama baro badan ku hayso waa finanka wejiga so marka finanka wejiga ayaa u baahan inaan mawduuc dhan uga hadalno laakiin si guud aan usoo koobayaa haddii fin uu kaa soo baxo haddii aadan dhakhtar u teginin takhasus u ah ama aqoon u leh oo aadan hore iskaga daaweynin xitaa hadduu nabarkaababa waxaa laga yaabaa in aad laba midood la kulanto madow nabarkii uu reebay inuu wejigaada ku yaallo ama duleel oo tush tush ah oo wejiga ku yaallo oo hadhowti quruxdaadii wejiga dhibaateyn karo marka wejigaaga waa baasaboorka ummad kula hor imaaneyso ama adduunyada ku mareyso fadlan haddaad ku aragto xanuun inuu ku dhaco cid kale ha ku aaminin cid aqoonle ku aamin kadibna sida ugu dhaqsiyaha badan iska daaweeye annagana waxaan rajeyn doonaa anigoo la kaashanaya tiimka hadda ila joogo inaan idinkaga soo sameyno mawduuc muhiim ah oo sida loo isticmaalo loo daryeelo iyo haddaad wax ku aragtay sida aad iskaga daaweyneysid insha allah guud ahaan intaasi waxaynu kusoo afmeynaynaa barnaamijka tusaha caafimaadka raja t v oo toddobaadkiiba maanta oo kale aad ka daawataan shaashada raja t v toddobaadkan barnaamijka tusaha caafimaadka waxaa igala qeyb qaadanaya doctor cabdixakiin salaad nageeye anigoo ku booqday xaruntiisa shaqo isbitaalka jaamacadda jaziira toddobaad walba maanta oo kale barnaamijka waxaa idinla socodsiisa anigoo ah baaji cabdulaahi salaad barnaamijkan kiisa xiga waxaan idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo caafimaad horumar leh